شبغدي علايا إيو ما يقاك تشوبان إيو مصلها شفكي سيو شاق مدار تشيسيو شادي يا ناسيو شاق نور بالهيسيو شبغدي علايا إيو ما يقاك تشوبان إيو ما شاء الله شفكي سيو شاق مدار تشيسيو شادي يا ناسيو شاق نور بالهيسيو شعبكي هرقيسو شن هبي daawadayaal asxaabta iyo akhyaarta iyo daawadayaasha dhaafaad dunida nagaga xidhan iyo in badan oo magaalada Hargeysa guryaha adag ku jirto nagu xidhanay soo dhawaada maanta waxaan saaranahay dusha sare ee magaalada Hargeysa halkan aan joogo waa xaafadda barka buurtan aan dusha ka saaranahay oo dad badan oo magaalada Hargeysa ku nool aanay ogeyn inay halkan ku taado isla markaana haddii ogaan lahaayeen ay u soo bixisi lahaayeen ayaan maanta dusha sare kaga taaganahay buurtan wax la yahaa barka waxa ay xasuus u tahay in lagu laayay boqolaal dad ah oo Soomaaliland dhashay xilligii kaligitariskii macanka gahay dawladda Siyaad Barre ay halka ka talinaysay boqolaal qof aan u qisaasay halkan maanta laakiin hawsh sidii hore way ka duwan tahay waa nabadgelyo neecawda nabadda ka soo dhacaysa dusha sare ee magaalada Hargeysa halkan waxa ku muuqanaya dhammaan degmooyinka magaalada Hargeysa nawaaxigeeda kala duwan ay ka kooban tahay iyo xaafado aad u badan oo magaalada Hargeysa ay ka kooban tahay شبغدي علايا إيو ما يقاك تشوبان إيو مصلها شفكي سيو شاق مدار تشيسيو daawadayaal halkan mar bay ahaan jirtay hoyga murugada iyo in lagu dilo boqolaal qof muuqaalkan imika soo socda aad daawan doontaan waxay ahayd hadda ka hor say u ekeyd magaalada Hargeysa burbur aad iyo aad u fara badan guryo laga qaxay iyo madaafiic iyo taangiil lagu garaaci jiray magaalada Hargeysa maanta si boqolkiiba boqol way ka soo kabatay oo waxay la tartamaysaa caasimadaha dhigeeda ee ku yaala geeska Afrika iyo qaaradan aynu ku noolahay daawasho wanaagsan ku soo maalmo kadib waxaa soo gabagaboobay duqeyntii waxay dumiyeen guud ahaan Hargeysa xaaladda Hargeysina waxay ahayd sida idin muuqata dhammaan waxaa la burburiyey guryihii hoyga u ahaa dadka iyadoo si gaara loo beegsanayay dhismayaashii ganacsiga suuqyadana waxaa wadnaa meydka maatadii la xasuuqay waa halka ay ka soo bilaabmeen xabaalo wadareedyada ilaa maanta roobabka iyo daadadku soo faqaan kuwani waa saraakiishii ciidamada Soomaaliya markii ay duqeeyeen magaalada ayay hadda kormeerayaan wixii ay geysteen waxay afkooda ka sheegayaan in burburka guryaha iyo meydadkiiba wadhan yihiin oo isku hoos jiraan daawadayaal muuqaalka aad soo daawateen ee murugada lahaa wuxuu ahaa muuqaal aan idinku xasuusinayno Hargeysa sidii ay ahaan jirtay xilligii uu ka talinayay halkan keligii taliskii macanka gahaa dawladda Siyaad Barre laakiin intii ay gacanta Soomaaliland ku soo noqotay magaaladu waxay marba marka ka dambeysay keenaysay kabasho iyo inay ka soo noqoto burburkii faraha badnaa ee loo geystay maantana waxay u eg tahay sidan aad aragtaan ila daawada haddaan imikana mid idinku sheego degmooyinka ay ka kooban tahay caasimadda magaalada Hargeysa sida caadiga ee dawladda hoose u diiwaan gashan waa 9 degmo weeyaan degmadan imika aan joogno waa degmada Axmed Dhagax weeyaan degmadan iyadu ka sii hooseysa waa degmada Gacmo Dheere weeyaan halkaas ay ka muuqata waa degmada Koodbuur weeyaan sidoo kale degmada Gacan Libaax ayaa iyaduna halka ku jirta degmada Maxamuud Haybe ayaa halka ku jirta degmada Maxamed Mooga halka ku jirta Gacmo Dheere saan idin soo sheegay macallin Haaruun oo iyaduna halka ku taala Gacan Libaax baa iyaduna halka ku taala degmada Maxamuud Haybe ayaa iyaduna halkan ku taala 9 degmo ayay ka kooban tahay caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland 9 degmo kasta waxa ka sii kooban tahay intaas oo sub district ama intaas oo xaafadood ay iyaduna ka sii kooban tahay daawasho wanaagsan quruxda magaalada daawadayaal marka hore ku soo dhawaada muuqaalkii magaalada guud ahaan saas u wadeegay magaalada Hargeysa muuqaalkeedii nabad iyo xasilooni barwaaqo iyo bashush baa ka muuqanaya haddaan xaafad idinku sheegana halkaas sida idin muuqata
waxaa ka soo muuqanaysa xaafadii gantaalaha jigjiga yar oo iyaduna saa uga hooseysa oo halkaa ka aragtaan laag baraka iyo Sun Hotel oo iyagu caanka halkaa iyadana waxaa ka soo muuqanaysa Hamdan Hotel Saacadiin baa ku xigta wixii intaa ka shaqeeya waa kantaroolkii iyo magaalada xaggii looga baxay galbeedka weeyaan halkaas sida idinka muuqata waa Hargeysa Stadium weeyaan oo ku yaala xaafadda Cakaare iyo xaafadda Siinay dhexdeeda iyo October meel istiraatiiji ah caan ku yaala halkaas aad uga aragtaan waa minaaradii dhaadheera ee suuqa isla markaana waa centerkii suuqa magaalada Hargeysa oo isaguna aad iyo aad u qurux badan suuqii cusbaa ee magaalada Hargeysa la dhisayay ayaa dhismihiisa halka gibi ahaan ba idinka muuqanaya isagana haddana waxa la eedaamaya salaadii duhur oo dhammaan eedaanka magaalada ka baxaya halkan buurta si toos ah ayuu dhagaha ugu maqlayaan halkaa waxa ka muuqata tiyaatarkii magaalada Hargeysa oo ka bilaabmayo isagana xaafadii New Hargeysa halka ka sareysana waa xaafadii Sheekh Madar weeyaan iyo Sheekh Mubaarak kilarkii xaafadii daamiba iyaduna halkaa ka soo muuqata wixii halka ka xiga waa dab la taagay oo buurta iyaduna fog ee halka ka soo muuqata halka sida idin muuqata waa xaafadii ina mooga weeyaan waa New Hargeysa iyaduna ka sii sheeysa halka sidaad ka arkaysaan aad iyo aad u fog madaarka imika diyaaraddaas ka degaysa iyaduna oo diyaaraddaas waxa ku sii socotaa madaarkii imika ay fadhiisanaysa hadii Ilaahay ka dhigo madaarkiisa say u socotaa iyaduna si nabadgelyo ah ku socotaa imika aga dhiganaysa intaas uga xadhayba wata fadhiisatay شيخ مدر دشيسيو شادي يا ناسيو شيخ نور بالله يسيو شبقي الله يا إيو ما يقاك تشوفنيو ما شاء الله شافكي سيو شيخ مدر دشيسيو شادي يا ناسيو شيخ نور بالله يسيو شعبكي يا هرقيسو شن هبين عركي ميراي الله شعبكي هرقيسو شن هبين عركي ميراي aad iyo aad u qurux badan dusha marka tii eegaysana way ka sii qurux badan tahay oo waxa dareemaysaa inaad nabadgelyada iyo eedaanka iyo cibaadada ka socota magaaladu ay toos ku saaqayso leeyda macaanay halka ka dhacaysa wax loo dhiqaa totally ma jirto شبقي الله يا إيو ما يقاك تشوفن إيو مصلها شافكي سيو شيخ مدر دشيسيو شادي يا ناسيو شيخ نور بالله يسيو ما wadayaal muuqaalkii quruxda badnaa aan idinka soo duubaynay dusha sare ee magaalada Hargeysa isla markaana idinku kala baraynay xaafadaha iyo degmooyinka ay ka kooban tahay magaalada Hargeysa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dad badan oo halkan joogana waxaan kula talin lahaa inay leeyda qaataan leeyda oo halkan yimaadaan ku soo dhawaada baan idin leeyahay haddaad meel kale ka timiyo haddaad magaalada joogtiga buurtan maanta anaa kugu soo dhaweynaya diyaarna kuwa